dowladda Mareykanku waxay ogolaatay in Saudi Arabia ay ka iibiso hub qiimihiisu uu ka badan yahay $100 bilyan sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Reuters oo xigatay lixila wareed oo arrintani la xidhiidha heshiiska la gaari doona waxa uu hordhac u noqon doona booqashada la qorsheeyay in madaxweyne Donald Trump uu ku tago dalalka Saudi Arabia Qatar iyo Imaaraadka Carabta bisha May ee soo socota shirkadaha qandaraasa hubka ee Lockheed Martin RTX Corporation Boeing, Northrop Grumman iyo General Atomics ayaa dhammaantood ka qayb galaya hubkani laga iibinayo Saudi Arabia sida ay ogaatay wakaaladda wararka ee Reuters. Mareykanku waxa uu Riyadh uu ka iibin doonaa diyaaradda qaada xamuulka militariga C-130 diyaaradda dagaalka ee casriga ee F-35 nooc kale oo diyaarada dagaala gantaalo iyo raadarada ciidamada diyaaradda F-35 ayaa Mareykanku waxa uu ka iibiyay dalalka ku jira xulufada NATO iyo wadamo kale oo ay ka mid yihiin Japan, Kuuriyada Koonfureed iyo Australia. Maamulkii madaxweyne Joe Biden waxa uu diyaaradani uu ka iibiyay Saudi Arabia uu ku xidhay shuruuda in marka hore boqortooyadu ay caadiyeyso xiriirka ay la leedahay Israel iyo in meesha laga saaro maalgelinta Shiinuhu uu ku sameeyay dalkaasi iyo sidoo kale in Sacuudigu uu joojiyo hubka uu ka soo iibsado Beijing. Laakiin lama oga in Donald Trump shuruudo kuwii hore la mid ah uu hor dhigi doono qoyska boqortooyada ee Sacuudiga. IBS Bank waxa uu ku hayaa kaarar caalami ah oo aad kala bixi kartid lacagtaada adduunka meel kasta oo aad tagtid waana bangiga kaliya ee bixiya adeega Visa Card guud ahaan dalka. Noocyada Mastercard ee ka helaysa IBS waxa kamid ah Classic Mastercard iyo Well Elite Mastercard. noocyada Visa Card ee aad ka helaysa IBS-na waxa kamid ah Classic Visa Card iyo Infinite Visa Card. Sacuudigu muddo 10 sano ah waxa uu ku tiirsanaa hubka uu ka soo iibsado Mareykanka iyo wadamada reer galbeedka. Hase ahaatee 10kii sano ee u dambeeyay waxa uu hubka iibsanayay dalalka Shiinaha iyo Ruushka iyadoo uu xoogaystay cilaaqaadka Sacuudigu uu la leeyahay labadani wadan. Shiinuhu sidoo kale waxa uu maalgashi uu ku sameeyaa Sacuudiga. Saudi Arabia qudheedu waxay danaynaysaa in dalka Shiinaha iyana ay ku yeeshaan maalgelin xilli awoodda Shiinuhu ay ku xoogaysanayso gobolka Bariga Dhexe. dowladda Mareykanku waxay ogolaatay in Saudi Arabia ay ka iibiso hub qiimihiisu uu ka badan yahay $100 bilyan sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Reuters oo xigatay lixila wareed oo arrintani la xidhiidha heshiiska la gaari doona waxa uu hordhac u noqon doona booqashada la qorsheeyay in madaxweyne Donald Trump uu ku tago dalalka Saudi Arabia Qatar iyo Imaaraadka Carabta bisha May ee soo socota shirkadaha qandaraasa hubka ee Lockheed Martin RTX Corporation Boeing, Northrop Grumman iyo General Atomics ayaa dhammaantood ka qayb galaya hubkani laga iibinayo Saudi Arabia sida ay ogaatay wakaaladda wararka ee Reuters. Mareykanku waxa uu Riyadh uu ka iibin doonaa diyaaradda qaada xamuulka militariga C-130 diyaaradda dagaalka ee casriga ee F-35 nooc kale oo diyaarada dagaala gantaalo iyo raadarada ciidamada diyaaradda F-35 ayaa Mareykanku waxa uu ka iibiyay dalalka ku jira xulufada NATO iyo wadamo kale oo ay ka mid yihiin Japan, Kuuriyada Koonfureed iyo Australia. Maamulkii madaxweyne Joe Biden waxa uu diyaaradani uu ka iibiyay Saudi Arabia uu ku xidhay shuruuda in marka hore boqortooyadu ay caadiyeyso xiriirka ay la leedahay Israel iyo in meesha laga saaro maalgelinta Shiinuhu uu ku sameeyay dalkaasi iyo sidoo kale in Sacuudigu uu joojiyo hubka uu ka soo iibsado Beijing. Laakiin lama oga in Donald Trump shuruudo kuwii hore la mid ah uu hor dhigi doono qoyska boqortooyada ee Sacuudiga. IBS Bank waxa uu ku hayaa kaarar caalami ah oo aad kala bixi kartid lacagtaada adduunka meel kasta oo aad tagtid waana bangiga kaliya ee bixiya adeega Visa Card guud ahaan dalka. noocyada Mastercard ee ka helaysa IBS waxa kamid ah Classic Mastercard iyo Well Elite Mastercard. noocyada Visa Card ee aad ka helaysa IBS-na waxa kamid ah Classic Visa Card iyo Infinite Visa Card. Sacuudigu muddo 10 sano ah waxa uu ku tiirsanaa hubka uu ka soo iibsado Mareykanka iyo wadamada reer galbeedka. Hase ahaatee 10kii sano ee u dambeeyay waxa uu hubka iibsanayay dalalka Shiinaha iyo Ruushka iyadoo uu xoogaystay cilaaqaadka Sacuudigu uu la leeyahay labadani wadan. Shiinuhu sidoo kale waxa uu maalgashi uu ku sameeyaa Sacuudiga. Saudi Arabia qudheedu waxay danaynaysaa in dalka Shiinaha iyana ay ku yeeshaan maalgelin xilli awoodda Shiinuhu ay ku xoogaysanayso gobolka Bariga Dhexe.
dowladda Mareykanku waxay ogolaatay in Saudi Arabia ay ka iibiso hub qiimihiisu uu ka badan yahay $100 bilyan sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Reuters oo xigatay lixila wareed oo arrintani la xidhiidha. heshiiska la gaari doona waxa uu hordhac u noqon doona booqashada la qorsheeyay in madaxweyne Donald Trump uu ku tago dalalka Saudi Arabia, Qatar iyo Imaaraadka Carabta bisha May ee soo socota. shirkadaha qandaraasa hubka ee Lockheed Martin, RTX Corporation, Boeing, Northrop Grumman iyo General Atomics ayaa dhammaantood ka qayb galaya hubkani laga iibinayo Saudi Arabia sida ay ogaatay wakaaladda wararka ee Reuters. Mareykanku waxa uu Riyadh uu ka iibin doonaa diyaaradda qaada xamuulka militariga C-130 diyaaradda dagaalka ee casriga ee F-35 nooc kale oo diyaarada dagaala gantaalo iyo raadaarada ciidamada. diyaaradda F-35 ayaa Mareykanku waxa uu ka iibiyay dalalka ku jira xulufada NATO iyo wadamo kale oo ay ka mid yihiin Japan, Kuuriyada Koonfureed iyo Australia. maamulkii madaxweyne Joe Biden waxa uu diyaaradani uu ka iibiyay Saudi Arabia uu ku xidhay shuruuda in marka hore boqortooyadu ay caadiyeyso xidhiidhka ay la leedahay Israel iyo in meesha laga saaro maalgelinta Shiinuhu uu ku sameeyay dalkaasi, iyo sidoo kale in Sacuudigu uu joojiyo hubka uu ka soo iibsado Beijing. laakiin lama oga in Donald Trump shuruudo kuwii hore la mid ah uu hordhigi doono qoyska boqortooyada ee Sacuudiga. IBS Bank waxa uu ku hayaa kaarar caalami ah oo aad kala bixi kartid lacagtaada adduunka meel kasta oo aad tagto, waana bangiga kaliya ee bixiya adeega Visa Card guud ahaan dalka. noocyada Mastercard ee ka helaysa IBS waxa ka mid ah Classic Mastercard iyo Well Elite Mastercard. noocyada Visa Card ee aad ka helaysa IBS-na waxa ka mid ah Classic Visa Card iyo Infinite Visa Card. Sacuudigu muddo 10 sano ah waxa uu ku tiirsanaa hubka uu ka soo iibsado Mareykanka iyo wadamada reer galbeedka. hase ahaatee 10kii sano ee u dambeeyay waxa uu hubka iibsanayay dalalka Shiinaha iyo Ruushka, iyadoo uu xoogaystay cilaaqaadka Sacuudigu uu la leeyahay labadani wadan. Shiinuhu sidoo kale waxa uu maalgashi uu ku sameeyaa Sacuudiga. Saudi Arabia qudheedu waxay danaynaysaa in dalka Shiinaha iyana ay ku yeeshaan maalgelin xilli awoodda Shiinuhu ay ku xoogaysanayso gobolka Bariga Dhexe. dowladda Mareykanku waxay ogolaatay in Saudi Arabia ay ka iibiso hub qiimihiisu uu ka badan yahay $100 bilyan sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Reuters oo xigatay lixila wareed oo arrintani la xidhiidha. heshiiska la gaari doona waxa uu hordhac u noqon doona booqashada la qorsheeyay in madaxweyne Donald Trump uu ku tago dalalka Saudi Arabia, Qatar iyo Imaaraadka Carabta bisha May ee soo socota. shirkadaha qandaraasa hubka ee Lockheed Martin, RTX Corporation, Boeing, Northrop Grumman iyo General Atomics ayaa dhammaantood ka qayb galaya hubkani laga iibinayo Saudi Arabia sida ay ogaatay wakaaladda wararka ee Reuters. Mareykanku waxa uu Riyadh uu ka iibin doonaa diyaaradda qaada xamuulka militariga C-130 diyaaradda dagaalka ee casriga ee F-35 nooc kale oo diyaarada dagaala gantaalo iyo raadaarada ciidamada. diyaaradda F-35 ayaa Mareykanku waxa uu ka iibiyay dalalka ku jira xulufada NATO iyo wadamo kale oo ay ka mid yihiin Japan, Kuuriyada Koonfureed iyo Australia. maamulkii madaxweyne Joe Biden waxa uu diyaaradani uu ka iibiyay Saudi Arabia uu ku xidhay shuruuda in marka hore boqortooyadu ay caadiyeyso xidhiidhka ay la leedahay Israel iyo in meesha laga saaro maalgelinta Shiinuhu uu ku sameeyay dalkaasi, iyo sidoo kale in Sacuudigu uu joojiyo hubka uu ka soo iibsado Beijing. laakiin lama oga in Donald Trump shuruudo kuwii hore la mid ah uu hordhigi doono qoyska boqortooyada ee Sacuudiga. IBS Bank waxa uu ku hayaa kaarar caalami ah oo aad kala bixi kartid lacagtaada adduunka meel kasta oo aad tagto, waana bangiga kaliya ee bixiya adeega Visa Card guud ahaan dalka. noocyada Mastercard ee ka helaysa IBS waxa ka mid ah Classic Mastercard iyo Well Elite Mastercard. noocyada Visa Card ee aad ka helaysa IBS-na waxa ka mid ah Classic Visa Card iyo Infinite Visa Card. Sacuudigu muddo 10 sano ah waxa uu ku tiirsanaa hubka uu ka soo iibsado Mareykanka iyo wadamada reer galbeedka. hase ahaatee 10kii sano ee u dambeeyay waxa uu hubka iibsanayay dalalka Shiinaha iyo Ruushka, iyadoo uu xoogaystay cilaaqaadka Sacuudigu uu la leeyahay labadani wadan. Shiinuhu sidoo kale waxa uu maalgashi uu ku sameeyaa Sacuudiga. Saudi Arabia qudheedu waxay danaynaysaa in dalka Shiinaha iyana ay ku yeeshaan maalgelin xilli awoodda Shiinuhu ay ku xoogaysanayso gobolka Bariga Dhexe.